toddoba su'aalood oo ku sharxaysa imtixaanka yoos ee furaha u ah gelista jaamacadaha dalka Turkiga. Arday badan oo Soomaaliyeed iyo kuwa kale oo ajaanib ah ayaa aad u xiiseeya inay wax ku soo bartaan gudaha Turkiga, maadaama ay ka dhisan yihiin jaamacado awood badan oo sumcad wanaagsan ku leh dunida. sidaas oo kale xukuumadda Turkiga waxaa ka go'an inay qaabisho ardayda ajaanibta ah oo ay dalkeeda ku soo dhaweyso. waxaa intaasi oo dhan ka sii muhiimsan maciishada oo ardayga ay u sahlan tahay inuu si fudud ugu noolaado. lacagaha ay jaamacadaha Turkiga qaadaan way ka jaban yihiin jaamacadaha kale ee Yurub. waa falsafad xukuumadda Turkiga ay dejisay oo arday kasta oo aan dugsi sare ku dhamayn gudaha dalka Turkiga la marsiiyo heerkiisa aqooneedna lagu kasbeeyo laguna eego kulliyadda uu codsanayo inuu u qalmayo in kale. imtixaanka yoos laguma dhaco, darajada aad ka hesho ayaana lagu qiimeeyaa halka aad u qalanto. xilli go'an ma lahan, jaamacad kastana waqti gooni ah ayay ku dhawaaqdaa. imtixaanku waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan. qayb lagu eegayo heerka xisaabta aad ka joogto aljabra, geometry iyo su'aal xisaabeedyo kale. qaybta kale waa su'aal maskaxeed iyo macluumaad guud. muddada imtixaanka waa 100 ilaa 120 daqiiqo. tirada su'aaluhu waa 80 su'aalood oo ay jaamacaduhu ku kala duwanaan karaan. waxaad iska sii akhrisaa buugaagta aljabra, geometry iyo kuwa macluumaadka guud. jaamacad kasta waxa ay leedahay nidaamkeeda u gooniga ah oo ay kaga duwan tahay jaamacadaha kale iyo waqtigeeda u gaarka ah. hubanti luqadda Turkiga sidoo kale waxaa lagu qaadayaa Carabi iyo English.